xubno ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani oo maanta shir jirayd si wada jir ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay ku dhawaaqeen garabka badbaadada xisbigaasi doorteen hoggaan cusub iyagoo sidoo kalena sheegay inay dacwad u gudbin doonaan hay'adaha sharciga ugu horeyn waxaa shirkaasi jirayd ka hadlay Maxamed Cabdilaahi Uur Cadde iyo Faarax Cilmi Geedoole waxaan aaminsanahay inaan maanta halkan kaga dhawaaqno inaanu nahay garab ka soo horjeeda oo ah lagu magacaabo garabka badbaadada ee xisbiga wadani oo runtii noqon doona garab xooggan uguna yeedhaya dadka nala fikradda ee xisbiga ka mid ah inay ku soo biiraan odayaashii ugu waaweynaa ee garabka badbaadinta xisbiga wadani waxaa shalay taanu shir yeelanay wiigan oo dhanba shir baa noo socday shirkii u dambeeyey shalay baanu yeelanay marka waxaanu go'aansanay maadaama laga leexday waddadii xisbigan lagu aasaasay uu ka leexday guddoomiye Ciro inaanu guddoomiye ka dhigno Cismaan ku-xigeenna oo sidoo horeba u ahaado Shiine hogaamiyahana uu noqdo xisbigu Geedoole oo garanaysaa inuu wasiir soo ahaayo guddigii ka mid ahaa waxaanu jecel lahay inaanu maanta caddayno halka ka caddayno inaanu go'aansanay haddaanu nahay xisbiga wadani ee garabka badbaadinta inaanu dacwad iyo sharci aanu ku soo dabaallo oo aanu hay'adaha sharciga marro guddoomiye Ciro oo ku tagrifalay awooddii aanu u dhiibnay ee xisbigu u dhiibay oo si isaga u gaara oo dantiisa ah u isticmaalay waxayna geestooda halkaasi ka hadlay Cismaan Ibraahim Warsame iyo Abubakar Sheekh Xuseen Meecaad Shiinadheere waxaana ku eedeeyeen guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu ku tuntay shuruucdii u taalay xisbiga mucaaradka wadani waxaan kaloo u sheegayaa guddoomiyihii Cabdiraxmaan Ciro inuu sharciga ku soo noqdo dadka reer Soomaaliland abaal bay ku leeyihiin waxay ka dhigeen xildhibaan 12 sanadoodna waxay ka dhigeen guddoomiye baarlamaan waxay ka dhigeen oo xisbigiisii bay soo saareen waxay ka dhigeen musharax 40% koob iyo 40 loogu codeeyo waa adag tahay muddo yaroo intaa leeg qofka intaa la siiyey ilaa maalintii uu soo galay siyaasadda Cabdiraxmaan shacabka reer Soomaaliland waxay siiyeen wax qof dhifa adduunka uu ka soo maray ku badbaadina waxa weey marka uu hoggaanka ama guddoomiyaha xisbiga uu garab maro shuruucda xisbiga eenu dhiganay ama aanu ku ansixinay shirweynaha iyagii aanu qabsanay ee noogu qoran xeerka xisbiga wadani marka ay shakhsi quraato baal maro waa inaanu saxnaa maadaama aanu nahay hoggaankiisa sare